السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أول أكسن دقيستيال كسر دوادي برنامجكينا الله وبرنامجكو حلقة عندي كسر دياري أنيقو عن جديد رئيس محمد حسن وأنت برنامجكين إن شاء الله تعالى وحكو قادونا تو dimensional arrays هرا waxaan ku soo qaadayna one dimensional arrays maanta waxaan bilaabaynaa two dimensional arrays. What is two dimensional array? maxay tahay two dimensional array? Two dimensional array is specified using two subscript. waxa kaliya lagu cadeeyaa one dimensional array u duwanta waxa leedahay two subscribers. hal awal waxay leedahay one dimensional one subscribers halka two dimensional leedahay two subscribers. one subscribe waxa loo yaqaanaa waa donate waxay cadeysaa rows ana other one ka kale waxay cadeysaa columns. halka one dimensional array lahayd one subscript only. hadda two dimensional waxa leedahay two subscript. Okay, sidee loo declare gareeyaa two dimensional array? waxay la mid tahay sidii array-da hore. waa array waxaan dhahnay waa same data type, waa shay oo hal data iska wada leh, ama integer ama character ama xarfo ama uu yahay numbers oo kaliya. hal shay is wada leh waxa loo yaqaan arrays. two dimensionalna waxay ka mid tahay array, sidaas karta waa inay same data type noqdaan, array isla wataan. waxaan dhahnay array-dan waxay ka kooban tahay magaca array sheegaysa two subscript leedahay, two subscript another one subscript another subscript. subscript ugu hore waxaa lagu cadeeyaa ishak rows, ta kalena waxaa lagu cadeeyaa columns. tusaale waxaan dhahnay saddex row iyo laba column ha ka koobnaado. row waxaan dhahnay kuwa jijiifka columnsna waxaan dhahnay kuwa taataagan. marka kuwa taataagan laba taataagan iga dhig iyo ama waxaan dhahaynaa two rows three columns. Okay, hadda waxaan sameeyey array declaration. array waa declare gareeyey. arraygan wuxuu ka koobnaa doonaa laba row iyo saddex column. halkii row saddex column oo lahaan doona, saddex qiimaa geli doonta. rowgii labaadna waxaa geli doonta saddex hadii lagu daro waa lix qiimo ayuu isaaskiisa waa lixdaas qiimo ayuu yahay doonaa. Okay, hadda waa declare gareeyey. cell initialization lagu sameeyaa. waan declare gareeyey anaga isticmaalayna sidaan ayaan waxaan sameynaynaa sidoo kale initialization. waxaa kaloo isticmaali karnaa inaan sameyno array declaration kadibna initialization magaca array inaan dhahno kadibna indexkiisa u yeerno waa sameyn karnaa. bal aan sidaan sameyna marka. Okay, row maadaama uu two row ka kooban yahay, each row waxaa ku jirto saddex column. Okay, halkii row ugu horeysa waxaa ku jirto saddex column. row kuwaad waxaan ku jubnay saddex. rowga labaad uu ka kooban yahay haddana furayna asigana waxaa ku jubnay saddex qiimo. saa ujeedaa marka row kuwaad wuxuu ii kooban yahay saddex qiimo, rowga labaadna wuxuu ii kooban yahay saddex qiimo. hala each row waxaa ku jirto saddex, kow labo saddex. Okay, arrayga sizekiisa wuxuu ka indexkiisa wuxuu ka bilaabaa zero, wuxuu ku egyahay size minus one. hal mar aan isla fiirino timetable-kan yarkaa isla fiirinaba. Okay, arrayga wuxuu ka bilaabdaa rowska waxaa noo qaabilsan kuwaan jijiifa rows, kuwa kor u taagana waxaan dhahnaa columns. kuwa jijiifa wuxuu ka kooban yahay array labo, wuxuu ka bilaabdaa zero, wuxuu ku egyahay size minus one. wuxuu ka bilaabdaa zero adhaan wuxuu ku egyahay size minus one. zeroga ka bilaabna size minus one, sizekiisa meeqa two minus one waa one. column-kan wuxuu ku bilaabdaa zero, wuxuu ku egyahay size minus one, sizekiisa meeqa three minus one waa two. marka array rowgiisa waa wuxuu ku egyahay zero one ku jirto, column-kiisana zero one two. Okay, intaan oo ka kooban yahay. markuu arraygu rowgiisa uu zero yahay, column-kiisa uu zero one ay ugu jirto. markuu rowgiisa zero yahay, column-kiisa one uu yahay two ay ugu jirto. markuu rowgiisa zero yahay, column-kiisa two uu yahay three ay ugu jirto. rowgiisa markuu one yahay, column-kiisa uu zero yahay four ay ugu jirto. rowgiisa markuu one yahay five ay ku jirto. rowgiisa one y, column-kiisana one y waxay ugu jirto five. rowgiisa markuu one yahay, column-kiisa two yahay waxay ugu jirto six. arrayda inta badan waxaa lagu isticmaalaa
unit ka hadlaya xisaabaadka la yirahdo matrixka waxay ka kooban tahay row and columns si lamid ah si programmadaas loo xaliyo waxaa la isticmaalaa arrays 2 dimension arrays ayaa lagu xaliyaa programmadaas waa soo socona anaga oo qaadanayna si la iskugu daro matrix sida loo kala jiro si la iskugu dhufto waxaas dhan waa qaadanayna okay see loo asad gareeyaa marka hadda aan asad gareyno waxaan asad gareynaynaa arrayga markuu rowgiisa oo 1 yahay columnkiisa oo 1 yahay waxaa ku jirto 5 qiimahaas inuu ii soo baxan rabaa okay aan dhahno print f waxay ii daawacdaa percentage d comma array name-kaa sheegay kadibna rowgaa sheega rowga waxaa dhaha 1 columnkana sidoo kale 1 maxaa la rabaa inuu ii soo baxo waxaan rabnaa inuu noo soo baxo qiimahan waxaa waaye 1 markuu yahay waxay u jirto 5 waa 1 iyo 1 markuu yahay waxay u jirto 5 aan 5 aragna markii noo soo baxo aan aragno saa ujeedaan waxaa soo baxay qiimaha 5 waa sidii loo access gareeyo 2 dimension array mid kale aan baroweyno markuu yahay 1 0 markuu inta yahay rowga markuu 0 yahay columnkana uu yahay 2 maxaa ku jiro 0 2 waxaa ku jiro waa 0 2 3 ku jirto 3gaas inuu noo soo baxaa rabaa aan fiirino jadwalka aan hamar iska xaqiijino waa 0 iyo 2 waxaa ku jirto 3gaas inuu noo soo daawac rabnaa okay aan dhiglaan garano saa ujeedaan waxaa soo baxay 3 each midkaa rabto waxaa ku index kaga kartaa rowga indexkiisa hal mar aan marka ugu dambeyna fiirino rowga markuu yahay 1 columnkana markuu yahay 2 1 markuu yahay rowga columnkana uu yahay 2 waxaan ka rabnaa inuu noo soo baxo 6 markaasaan fiirinaynaa rowga waxaa waaye 1 aa dhahay columnkana 2 waxaan ku dayay intaas waxaan ka rabnaa qiimaha ugu inuu noo soo baxo 6 saa ujeedaa waxaa halkaan noogu soo baxay 6 waa individual markaa halaal xabo markaa rabta inaad access gareyso waxaan rabnaa waxa dhan in laisoo bandhigo array ugu jiro waxaan isticmaalaynaa loopkaas waa nested loop ayaan isticmaalaynaa si labada xabo noogula soo daawaco waxaan declare gareysanaynaa row r aan qaadanaynaa column c aan qaadanaynaa okay aan bilaawno marka for loop I hala mid noqoto 0 iga bilaw intay ka yar tahay meeqa ka yar tahay rowga meeqa waay ma row aan dhahnaya row waxaa la mid noqoto 0 rowga intuu ka yar yahay imisuu ka yar yahay rowga 2 arta waxay noogu taagan tahay row plus okay for loop aan dhahna haddana columnka 0 c iga bilaw waa z intay ka yar tahay iyadana 3 aan dhahno maadaama columnka uu 3 yahay 3 plus c plus okay aan dhahno marka intaan ii daawacdayna marki intaan dhahno kan waxa u dhiibeynaa row kan waxa u dhiibeynaa column soo u shaqeeyaa marka intaanan daawicin ka hor soo u shaqeeyaa r waxay tahay 0 markay tahay maxaa loo soo geliyaa rowgana loopkana la soo dhexgelaa loopkan column maxaa waa 0 print f waxaa daawacdaa rowga markuu yahay 0 columnka markuu 0 yahay waxaa la daawacayaa automatically 1 la daawacayaa loopku inta uu noqonaya c oo plus leeyahay kan lama aadayo inner loopka loo noqonayaa c waxay noqonaysaa 1 waxay ka yartahay 3 rowga markuu yahay weli 0 columnkana uu yahay 1 waxaa rowga markuu 0 yahay columnkana uu yahay waxaa la daawacaa 2 saas ayuu shaqeynaya haddana wuxuu noqonaya 3 ayuu noqon 3 markuu noqdo columnka 3 columnka wuxuu noqon 1 2 oo noqon 2 markuu noqdo 2 wuxuu ka yaryahay 3 waa sax weli rowga weli waa 0 columnkana waa 2 2 markuu yahay waxay ugu jirto 3 yaa la daawacay haddana wuu noqon columnka wuxuu plus 3 oo noqday 3 waxay ka yartahay 3 loopka wuxuu noqday loopka oo invalid oo noqdo false oo noqdo markuu false noqdo kadib haddana inta waa noqona outer loopka loo tagaya row plus aa leeyahay 0 iska bedela inta muxuu noqonaa 1 waxay ka yartahay 2 intuu imaana haddana columnka muxuu ka bilaabanaa columnka 0 ka bilaabana 0 wuxuu ka yaryahay 3 intuu imaana row meeqa waa 1 c na waa 0 waxaa la daawacaa 4 saas ayuu ku soconaya dhammaan waa liisoo wada daawacaya marka
saan u kala garto laba saf inuu ii noqday inta waxaan leenahay print f slash n saa ujeedaan safka horeysa waa 1 2 3 safka labaadna waa wax yar hoosta iskaga jira aan bilaa aan cadayno akaliski row kood waxaa ku jiro 1 2 3 row labaadna waxaa ku jiro 1 5 6 4 5 6 agu waa dhammaan waxaa nala soo daawacay qiimaha ku jiro oo dimensional r inta dib u kulmi doono waa aniga waa injineer Cabdiish Maxamed Xasan oo idinku tagay sidaas iyo nabadgelyo. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.